Kumanaan dad ayaa ka cararay guryahoodii, daraasiyiin ayaa dhimatay, kuwa kalena lama hayo raqdoodii nolol iyo geeri toona. Tani waa Beledweyne oo ku taala gobolka Hiiraan, bartamaha Soomaaliya. Waa xarunta ganacsiga gobolada dhexe, laakiin maanta waa furin kaaga baahan kaalmo bini'aadanimo. biyaha la ka soo baxnay hooy ma haysano, bac ma haysano, guri ma haysano. waxaan u baahanahay gargaar degdeg ah, musqul male. waxaan u baahanahay Hay'adda UN OCHA waxay sheegtay in 70,000 oo qoys ay guryahoodii ka carareen. biyo baan u baahannahay, bacaan u baahannahay, baadan u baahannahay, wax kastaan u baahannahay. waad noo jeedin in oraxda aan taagtaagano oraxda aan fadhino 12 caruur. Biyaha webigu waxay xarqiyeen dad, guryo, isbitaallo, goobo waxbarasho, goobo ganacsi iyo masaajido, taas oo ka dhigan in noloshii magaalada oo dhan ay baabaaday. Beledweyne waxay ka dalbanaysaa gurmad. Soomaalidu waa bulsho caan ku ah inay iscaabiso, laakiin hadda waxaa muuqata in dad badan oo alle uu waxsiiyey ay ka mid yihiin shirkadaha waaweyn ee dalka, siyaasiyiin, ganacsatada iyo hay'adaha gargaarka in ay arrintan sahashanayaan. mukayf kala saaran asaa wax laga weydiinaa qiyaamo dadkan muslimiinta oo rafaadsan oo dhibaataysan oo gobolka joogo ninkii mas'uulka ka ah guriga mukayf kala xal seexday asaa wax laga weydiinaa. saaki markii dadka muslimiinta ay gaaladii wax ugu soo deeqdo dabaqa intuu ka soo dego oo u imaanayo la xisaabtama taas mas'uuliyad maaha. beledkan wax mas'uuliyad oo ka jira ma laha. annaga biyaha Itoobiya inooga imaadaan 10 maalmood aan TVda ka fiirsanaynay dadka mas'uuliyiinta Itoobiya joogo ay lahaayeen warbiyaha ka baxa ee dadkooda bixinayeen mas'uuliyiinta ay marada u xeedaneeday dadka bixinayeen. annaga wax mas'uul oo dadku waxay dhooban yihiin daafaha magaalada, ma haystaan biyo nadiif ah, cunto iyo hoy toona. Hantiilayaashii shalay maanta waa sabool. Hooyo hal wiil haysatay ayay biyuhu ka qaadeen wiilkeedii oo maanta waa carruur la'aan. Ilmo badan ayaa agoontoobay, gabdho badan ayaa asay qaaday oo ay lamaanahoodii biyuhu la tageen. waxaa si taa ka daran in intooda maanta nool oo ay ka cabsi qabaan inay gaajo iyo haraad u dhintaan haddii aan gurmad lala gaarin. $1 oo maanta ugu deeqdo walaalaha Beledweyne ayaa laga yaabaa inay naf dhan badbaadiso. Ha baqiilin, ha yaraysan, ha diidin, hana iloobin in adiga idaawanayo ku sugayaan walaalaha Beledweyne. aan u gurmadno Beledweyne.